qisadu waxay ku saabsan tahay saxaabi ka mid ah saxaabada nabiga sala allahu calayh wasalam qiso dhex martay asaga iyo nabiga sala allahu calayh wasalam iyo reer uu gabarh ka doontay ii ogolaada marka hore inaan saxaabiga magaciisa idiin sheego julaybiib waxaan filayaa dadka dalabatulcilmiga ah inta badan way yaqaanaan julaybiib ilaahay baa xikmaddiisu subxaanahu wa tacaala qofo sibuu u abuuraa abuurka ilaahay oo dhanna waa qurux laqad khalaqna alinsaana fii axsani taqwiim laakiin saxaabigani ilaahay wuxuu u abuuray subxaanahu wa tacaala qaab ay bini aadamku ay dhahaan waa laga qurux badan yahay hebel maalin maalmaha ka mid ah wuxuu nabiga arkay asagoo murugaysan nabiga ayuu u yimid ama nabiga u yimid sala allahu alay wasalam asagoo murugaysan buuna arkay wuxuu rasuulka ilaahayow waxaan qiray shahaadati an laa ilaaha ila allah waxaan kaloon qiray wa annaka rasuulullah adiga rasuul ilaah inaad tahay baan qiray aniga qaabka ilaahay ii sameeyey foolxuma yacni qaabka aniga ilaahay ii sameeyey saasoo isagu isku lehay aan qurux badnayn qaabka aniga ilaahay ii sameeyey ma ii diidaysaa inaan jannada galo su-aal cajaa'ib badan nabigu wuxuu yidhi maya sala allahu calayh wasalam saxaabigii wuxuu yidhi haddaba maxay dadku iigu diidaan gabdhahooda haddaba inaan guursado axad ii guurinaya lama arko qof kastoon albaabka ku garaaco rasuulka ilaahayow gabadhiisa waa ii diidayaa halkaa markay arrintu marayso nabigeenna sala allahu calayhi waaalih wasalam wuxuu yidhi orodoo u tag qoyskaas reer hebel la yidhahdo hebel iyo hebel isqaba u tago waxaad ku dhahdaa gabadhiinaan idinka doonayaa gabadhiinna ayaan idinka rabaa ku dheh nabigaana isoo diray sala allahu calayhi waaalih wasalam kadibna saxaabigii waa soo baxay qoyskiibuu u yimid wuxuu yidhi gabadhiinaan idinka doonayaayoo nabiga isoo diray ninkuu ku hormaray oo ninkiiba wuxuu yidhi marxaban bik wuxuu u qaatay qofka raba gabadha inuu nabiga yahay sala allahu calayhi waaalih wasalam markuu arkay ogaaday oo dareemay inuu u qaatay cidda gabadha rabta inay nebi moxamed tahay sal ly salam julaybiibna lasoo dirsaday ka rasuul ahaan ayuu yidhi maya u kaadi cidda gabadha rabta nabiga ma aha sala allahu aleyh wasalam hee cidda gabadha rabta waa anigee loo raba gabadha ma adigoo julaybiiba haa anigoo julaybiiba wuxuu yidhi bal hadda isug aan hooyadeed la soo tashada eh kadibna hooyadeed buu u tegay qiso cajiiba waaye waaqiceenna soomaali ahaana qayb badan ka waafaqsan wuxuu u tegey xaaskiibuu u tegey odaygiibaa u tegaya wuxuu ku yidhi nabigaa naga soo doontay sala allahu alay wasalam gabadheenni gabadhi intaa way maqlaysaa sheekada gurigay ku jirtaa waxay tidhi marxaban bihi ma nabigeenna gabadheenna raba waan soo dhowaynaynaa markaasuu aabbihiina yidhi cidda gabadha rabta nabiga ma aha sala allahu aleyh wasalam hee waa julaybiib kadibna riwaayooyin kale ma cid kaluu waayey iyo kadaa iyo calaa kulli xaal arrintaasi way ka gows qabsadeen labadaas markii arrimaha la isdhaafsaday gabadhii waa maqlaysay gabadhii way maqlaysay gabadhii baa qolka ay ku jirtay bay ka soo boodday markaase waxay tidhi maxaa jiro oo say wax u jiraan waxaa la yidhi sidaa iyo saasay wax u dhaceen waxay tidhi ma nabi moxamed qofkuu ii dooray miyaad idinku hor istaagaysaan waxay dareemaysaa nebi moxamed qofku u dooray inuu yahay qof khayr badan ayay dareemaysaa markaasaa waxay akhriday wamaa kaana limu'minin walaa mu'minatin idaa qada allahu warasuuluhu amran an yakuuna lahum alkhiyara culamada qaar baaba yidhi saasay ku soo degtay laakiin aayaddu gabadhu saasay akhriday
julaybiib calaa kulli xaan gabadhii waa la siiyey mar haddee gabadhii noocaa ay timid ay tiri gabadhii waa la siiyey nabigu waa ku farxay sala allahu caleyh wasalam julaybiibna waa u duceeyey maxaa yeelay kaana faqiiran wa damiiman nin lagana qurux badan yahay haddana aan waxba haysanin oo cid gabadhiisa u guurinaysa aynan jirin buu ahaa bal qisada ila dhegaysa ayuha alaxiba uxibukum fillaah maanta gabdhaha waxaan iskugu diidnaa wuu foolxu yahay waxaanu iskugu diidnaa xoolo ma haysto waxaan iskugu diidnaa waa reer hebel ba ugu daran reer hebel ayaa ugu daran iyo tabaqaadka dadku inay iskala sarraysiiyaan qisada marka waa qiso cajiib oo yaa badane waxaan rabaa inaan ku soo aruuriyo oon ku soo gebagabeeyo julaybiib oo diyaarsan gabadha inuu dhistana doonaya suuqa jooga oo wax gadanaya ayaa wuxuu maqlay yaa khaylallaahi irkabi jihaadkii uxud ayaa la iclaamiyey in la aado kadibna wuxuu is yidhi war ma jihaadkaad aaddaa mise gabadhaad dhisataa nabiguna sala allahu alay wasalam wuu ogaa hadduu si cad u soo istaago inuusan oggolaanaynin oo nabigu horay wuxuu yidhi ninka guri uu qabyo ka yahay oo saqafkii saaranaya iyo qofkay gabadhi u doonan tahay midna yuusanna raacin wuu isqariyo wuu isduuduubay dagaalkiibuu dhinac ka galay markuu dagaalkii uxud dhammaaday ayaa la yidhi yuu nabigu sal ly slam yaa maqan yaa dhintay yaa la dilay hebel iyo hebel iyo hebel bal ku laabta hebel iyo hebel iyo hebel anu nin baan tabayaa ayuu nabigu yidhi sala allahu alay wasalam anigu nin baan tabayaa war bal ninkan bal cidda aad magaceeda sheegteen may cid kale ma garanaysaan maya haddaba anu nin baan tabaya waa maxay julaybiiban ninka julaybiib la yidhaahdo ayaan tabayaa kadibna waa la raadiyey waxay soo heleen asagoo dagaal adag galay 7 nin oo gaaladii la dagaalamaysay quraysheed ahay dilay kadibna ay dileen nabigu sala allahu calayhi wasalam intuu istaagayba wuxuu yidhi qatala 7 ثم قتلوه هذا مني وأنا منه تضبوا دلي كدبنا ويدلين كان جليبيب أنيقو إيجاميديا هي أنوغنا أساقا أيان كاميرا كدبنا النبي صلى الله عليه وسلم أساقا أيان قعميه الشريفة قيمها بدن أيو نبي كقاضي صلى الله عليه وآله وسلم إلا لقلي اللحدقي إيا قبرقي لقلي أيها الأحبة في الله أحبكم في الله قصة ما حد كيف فهمتين أرجو إنه قفل بقصة سي معاني ذا أي حنبارسان تاي إن أروحه إنت أنو كيكل ما إنه حلقة الشنات وحد كيتك أستودعكم الله وأحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.